xafladan ayaa jaaliyada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee DDSI waxay ugu mahadceliyeen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar. xafladan ayaa lagu taageerayay waxqabadka madaxweynaha. sidoo kale xafladan ayaa waxa lagu taageerayay buundada isku xirta Fiiq iyo Mulqmaaye oo ku yaala gobolada deegaanka Soomaalida Itoobiya. xafladan ayaa waxa soo qabanqaabiyay jaaliyada Soomaalida Itoobiya ee DDSI ee gobolka Minnesota. geera ay beesha ree obo ee degta degmooyinka Mayumulqo iyo Qubi ee gobolka Erar u muujinayaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar horumarka ballaaran ee uu ka hirgeliyay deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaan si gaar ah madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uga mahadcelinaynaa isbedeladii waaweynaa iyo mashaariicdii horumarineed ee uu ka hirgeliyay madaxweynuhu degmooyinka Mayumulqo iyo Qubi. mashaariicdaas oo ugu dambeysay wadada iyo buundada weyn ee mucjisada ah ee ka talowda toga Erar ee isku xidha xarunta gobolka Erar ee Fiiq iyo degmada. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa waxqabadka dowladda deegaanka haddii aanu nahay beelweynta Akisho si buuxdaan u taageersanahay dowladda deegaanka Soomaalida iyo horumarinta deegaanka ka socda. buundada weyn iyo wadada isku xidha gobolka Erar buundada weyn oo maalin dhawid laga jiray xadhiga oo ahayd buundo taariikhi ah una baahnaayeen dadka shacabka ee degan degmada Mayumulqo waxay ahayd mid farax gelisa soo waxaan leenahay jaal madaxweyne cadceed soo baxda noqotay insha Allah gabal dhac Ilaahay ka ma dhigo. waxaan aad ugu faraxsanahay Qubi iyo Mayu waxqabadka suuban ee ka qabatay ma sha Allah tabarakallah Ilaahay rabbi subhanahu hoos ku maceliyo. sanahayn madaxweynuhu tan kaliya wixii uu sameeyay bridge-ka isku xidha Mulqamayo iyo bridge-kan kaliya iyo Fiiq inuu ahayn wax ka badan oo kale uu u sameeyay deegaanka Soomaaliyeed Soomaalida Itoobiya. madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar xaq ahaan hajiraan leenahay cimrigiisu haraagaan leenahay waana u mahadcelinaynaa naqbalaaran u soo jeedinaynaa dhammaan deegaanka ummadda Soomaalida Itoobiya waxqabadka uu ka qabtay mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud. hooyoy haliyeyga atii qayb dhan baan horaye hooyana ninka u heeliya waa haliyey roona taageero u fidisay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxqabadku ka qabtay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Zakariya Aadan, Universal TV, waqooyiga